xamse cabdiraxmaan gamuuto ah wiil 7 sano jir ah oo xanuunsan dhiigga ayaa dhammaanaya waxaana 21kii cashaba lagu shubaa dhiig uu nolol ahaan iminka ku tiirsan yahay xanuunkan ayaa lagu arkay isagoo jira 33 habeen cabdiraxmaan gamuuto warsame oo ah aabaha dhalay wiilkan yar waxa uu sheegay inuu caafimaad ahaan u geeyay dalka Hindiya laguna sheegay xanuunka ee plastic anemia dhuuxa soo saara unugyada dhiigga ayaan shaqaynayn sida ay dhakhaatiirtu sheegeen wixii dhaqaalaha uu heli karayay waxa uu ku geeyay dalka Hindiya laakiinse waxa loo sheegay inuu u baahan yahay wiilkiisu in laga bedelo dhuuxa lacagta lagu bedelay ayaa loogu sheegay adduun dhan $100,000 laakiinse ma awoodo cabdiraxmaan gamuuto warsame hadda waxa uu dib ugu soo celiyay magaalada Laascaanood xaaladda caafimaad ee xamse cabdiraxmaan waxa ka hadlaya Dr. Cabdi Majiid oo ah dhakhtar ka howlgala cusbitaalka Manhal ee Laascaanood waxaana uu ummadda muslimiinta ugu baaqay inay soo caawiyaan wiilkan yar ee xanuunsan waxa maanta la jooga oo isoo booqday familka ilmo yar oo leeyahay xamse cabdiraxmaan xamse waa wiilkan yarka weeyaan ilaahay caafiyo marka koowaad uu ladan yahay laakiin ilaahay caafiyo insha Allah caafimaad taama u rajaynayna 2017 ayay ahayd markii aabihii ii keenay ilmaha yarka ah markasta dhiiggiisa ayaa dhacaya yaani dhiiggiisa ayaa wuxuu noqonayaa mid aad u hooseeya oo uusan ka socon karin oo waxa weeye uusan ka ciyaari karin kadibna dhiig baa lagu shubay wuxuu u baahnaa in dhiig lagu shubo dhowr goor ayaa dhiig lagu shubay ugu dambeyntii arintii dhiig la'aantu way xalismi weyday mar walba sababta dhiig la'aanta keenaysa maysan muuqan haynin waxay noqotay ilmo yar oo ku tiirsan in dhiig lagu shubo hadda ilmaha yarka xamse bil walba 22 maalmoodba mar ayaa dhiigga lagu shubaa oo custalka ku shuba arintiisuna waxay noqotay markii la damcay in la ogaado dhuuxa oo meesha dhiigga samaysa ah ayaan shaqayn haynin inaga ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu nasiiyay dhuuxu marka waxa weeye maalin kasta wuxuu soo saaraa unugyo cusub oo dhiig buu soo saaraa kuwii hore markay meesha ka baxaan isaga haddii ay dhamaadaan kuwii hore meesha ka baxaan ama kuwii lagu shubay meesha ka baxaan kuwa cusub ma soo baxaan waayo dhuuxu ma shaqaynayo marka wuxuu qabaa xanuunka loo yaqaano afka caafimaadka lagu yiraahdo ee plastic anemia ee uusan dhuuxu shaqayn haynin markii dambe la damcay in la qaado aabihii wuxuu u qaaday intuu waxa weeye wax isku ururiyay meesha la yahay Hindiya waxa soo baxday inuu plastic anemia qabo dhuuxu uusan shaqayn haynin waxayna u soo jeediyeen in ay waxa weeye dhuuxa ka bedelaan oo dhuuxa waxa weeye marka ay u talaalaan arintaasna waxay u baahatay lacag aad u fara badan estimationka ama qiyaastii ay siiyeen waxay noqotay $100,000 marka hadalkan wuxuu daaran yahay maadaama aan dhakhtarkiisii ahay oo in badan aan xaaladiisa la socday in aan waxa weeye bulshaweynta iyo dadka muslimiinta ay muxsiniinta ah la wadaago in ilmaha yari fiican yahay laakiin dhiiggaas ku nool yahay in qof looga shubo sida daraadeed marka in ilmahaas la isgarab istaago cid kasta oo waxa weeye magacayga ama waxa weeye codkaygu gaadho ama waxa weeye fariintan ay gaadho in ay kaalmayso oo ay isgarab taagto oo ilmaha yarka ah ee soo kacaya ee fariidka ah waxa weeye u baahan kaliya in la gacan qabto oo arinta loo saxo sida halka jiifa oo aad aragtaan oo ku nool 22 cashaba in dhiig lagu shubo oo qof kale dhiig looga shubo noloshiisu ay tahay wuxuu ka baahan yahay maanta oo baahidu ay tahay in aynu isgarab taagno وإلهي سبحانه وتعالى وقدوانه الله سبحانه وتعالى وحليه وتعاونوا على البر والتقوى إننا تعاون سمينا أو إلمها يرأينا وحبكها كران الله النبي قلنا وحليه صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه إلهي سبحانه وتعالى أدونك كيو كالمين يويه انت أدونك أكالمين يو ولالك أكالمين يو مركز سيدة دراديد ولا ليال وحلو بهي هاي maanta wax kale looma baahna meel hoo doonaysa hadal wax kama taro ilmaha yar inaynu badbaadino oo marka hadaynu badbaadino waxay la mid tahay inaynu ummadii oo dhan badbaadinay marka taas loo baahan yahay walaalayaal sadaqadu waxa weeye waa shay qaali ah kitaabkeena quraanka baa in badan ka sheekeeyay Allah subhanahu wa ta'ala yamhaqu Allahu riba bulayhi wa yurbi sadaqat ilaahay wa sadaqada barbaariye bulayhi nabigeenna alayhi salatu wasalaam
in badan ayuu sadaqada ka hadlay oo uu inala dardaarmay inaynu maxaan sheegayo kale sadaqada aynu bixino maalin maalmaha kamid ah nabiga kaleey salaatu wasalaam ne fadhiya ayuu qalay dabadeedna wuxuu yiri Aisha qaybi oo masaakiinta oo qaybi maxay noo hadhay buu yiri markii dambe garabka mooyo intii kale oo dhan bay noo hadhay buu yiri wuxuu kale nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam bini aadamku wuxuu leeyahay maalkayga xoolahayga waxoolahaaga ku leedahay waxaad gashato oo korkaaga ku dhamaada ama waxaad maxaan sheegayo kale cunto oo saxariya kaadi noqda iyo waxaad ilaahay agtiisa sii dhigato mooyaane maalkaaga wax kale kuma leeyahay tusaale kale nabigu sallallahu alayhi wasallam oo tusaalahaas wuxuu ahaa qofkeeba jecel waxa uu laga dhaxlayo ka jecel waxa uu leeyahay saxaabadu waxay yiraahdeen rasuulka ilaahay qof walba waxa uu leeyahay buu jecel yahay wuxuu nabigu kaleey salaatu wasalaam waxa aad leedahay waa waxa ilaahay hortiisa sii dhigato wuxuu kale inoo sheegay nabigu kaleey salaatu wasalaam sadaqadu inay daawo tahay oo ay caafimaad daawo mardaakum bisadaqa ku daaweeya dadka idinka xanuunsanaya sadaqad oo marka taas ay ka dhigantahay hadii cid xanuunsanayso in ay sadaqada halka ay ilmaha xanuunsanaya ay kula baxdo in iyadana ilaahay subxaanahu wa ta'ala caafimaad ku siin karo wuxuu kale ka hadlay nabigu kaleey salaatu wasalaam oo inoo tilmaamay xadiis kale fara badan oo sadaqada ka sheekeynaya sadaqadu inay balaayada difaacdo maalinta qiyaamo inay naarta iskaga ka gudbayso in maxaan sheegayo kale wax far badan oo faa'iido laga helo ilmaha yar ee dhibanaha ah ee 12 cashaba halka mardhiga loo shubayo waxa yaaniga uu mudan yahay inaynu iskarab taagno waxa aad iyo aad yaaniga kelmad ee taabatay ah oo leega sheegay abihiiga sheekeeyay wuxuu marka dhiigu ka dhamaado wuxuu oranayaa intuu soo xanuunsado xanuun far badan dareemo aabow dhiigi baa iga dhamaaday dhiig ha laygu shubo aabow dhiig ha laygu shubo haddaan markaa lala gaadhin koomu galaya ilmaha yar haddii aan markaa lagu bashubeyna xaaladiisu khatar bay galaysaa isagoo murugaysan oo aabow dhiigi baa iga dhamaaday aabow dhiig marka walaalayaal insha Allah ta'ala waan iska soo koobayaa aan caawinno ilaahay aan ugu dhawaano waxa loo baahan yahay waa $100,000 Mareykanka hadeen kaba badanba marka waxa weeye fadhiga aynu ka kacano aynu badbaadino waxay la mid tahay inaynu dadku oo dhan adduunka ku nool oo dhan aynu badbaadinay waxaan halkan ugu nimi wiil yar oo laga keenay magaalo ka tirsan gobolka Sool wiilkan yar magaciisa waxa la yiraahdaa Xamsa Cabdiraxmaan Cabdullaahi wiilka yar sidii ma taqaana dhakhtarkiisa iyo wadaadkuba ay idin sheegeen waa wiil yar oo xanuunsanaya marka adduunka iyo islaamkaba wixii ma taqaana tabarucaadka bixiya anigoo og dadka Soomaaliyeed ma taqaana inay isu gargaaraan oo isu naxaan ayaan waxaan codsanaynaa sidii dhakhaatiirtii culimaduba ay u sheegeen wiilka yar ma taqaana sabiga ah ma taqaana in la caawiyo dhaqaalihii sidii horeba loo sheegay dhaqaale yar maaha meelo badan aabihii waa geeyay wiilka yar waa 7 jir 7 sano yaanigi xanuunkaas wuu qabay marba meel haleela tago waxaan ka codsanayaa islaamka intii ma taqaana sadaqada bixisa iyo inta ma taqaana wanaagsanba islaam oo dhan iyo dhammaan gobolka Sool wixii ma taqaana u dhashay oo dhan in ay ma taqaana wiilka yar ay ma taqaana ay